السلام عليكم أصحابتي السلامي فوزيكم بيدي قصة وهذا أنت عافمات قبته أنت حنوصل حول الجنة عافمات إن شاء الله ما أنت وحواي صنقد أذو نبضة وعيك وصنقد الحمد لله إلهي بنك شكرنا يا عافمات نبض السيء ونصو وذكعي هذا نحين هاي وعصر الحمد لله شكر الله ما أنت وحن كهضها يا الصومالي ذا dumarka Soomaaliyeed oo aniga ka koow ahay in ka hadlaya wixii bariyahana ka socday TikTok aniga waa iga yaabay mister aniga intaan aan dad jafayo ilaahay musta'aan waxa way kana video labaad waa kan maraan haystay basadir aan haystay from Tanzania iyo hadan haysto aniga aan ka koow aan ka yahay anagaas jafayno maanta TikTok waa iga yaabiyay حيجي يا بتيك بريا وحقص على مستري عيب عليك ويليش الصوماليات أيا البهدلوا يا ويليش هنا الصوماليات أيا البهدلة فيديو وحلا صور جاي ضد عدان هايستانو اسكو أوينا يانو ويلك عدانكو أوينا يعني رومانتيك عادي إنتو صاير إنتي سا أيا تيك توك الصور حلي جاي صومالي ده بيجي صومالي ده أساس أوريجينال وريجي أرك تي قبرهت تي ماما هت تي محلي جير مركز يا اسكا اهبو ويسويس الله قويل ويل كاين الصوماليات موسان اهاد الله ويل الصوماليات موسان اهاد ويل الصوماليات رومانتيك مالها الله ويل صومالي او هنت كدعي صبر اصحابي الى في صدبر اصحابته إله الصومالي ساكاتك tan ku xigtana bar fiirsada bar ما شاء الله نحرست لو شيغي يا بواتن sidoo la qaybsanaya xaaskiisa xanuunka daawo ما شاء الله xagga saasa laga rabaa Soomaaliyeed wayaab gabdho saanaga dumar u nahno wiilasheena Soomaaliyeed maxay saa ugu bahdilaysiin wiilasheena Soomaaliyeed ما شاء الله romantic waa aqaana shantan farod isku mid ma aha hadduu maanta kugu soo hagaagay adiga mid romantic aqaanin oo asaga ka dhacsan hadduu kugu soo hagaagay misna kugu soo hagaagay mid markuu banaanka aad iska soo saxanayo oo markaas uu daawado idaa ku dhaxay hadduu kugu soo hagaagay maxaa bulshada u keenaysaa why waxaasay waxay ku tahay private bulshada inaa keeno inaan dhahno wiilasheena Soomaali romantic ma aqaanaan wiilasheena Soomaali romantic ma aqaanaan waa ceeb عليك bariyaha ma ogtahay inis Soomaaliya Google kala tafsiirayo maanta waxa Allah waxaan sameeyno Soomaaliyeey gabdhow waxa Allah waxaan sameeyno dadkan ajaanibta dhan way la socdaan ma fahanteen waxa Allah waxaan sameeyno way la socdaan wiilkeena Soomaaliyeed romantic waa aqaana hadduu aqaanina Ilaahay bari Ilaahu Rabbi raxinko mid aqaano oo toosan Ilaahu isiideh salaada shanta waqti inta dukato laakiin waa ka xumahay inaan sida amal ah oo weyso bal fiir hadana إله الصومالي ساكاتك كليغا ما xanuunka kula dareema ka dhig laba arkimaayo Soomaaliyeed midna duuma kana sana la bararina wiilasheena Soomaaliyeed romantic ma aqaanaan kan waayo kuus waayo ana horta waxaan dhihi lahay sida marka hore u dhahay shan farood isku mid ma galka dil kartiisna si ma fahanteen Soomaalida wiilasha Soomaaliyeed boqol ayaa jirta romantic aqaanaan ma fahanteen boqol ayaa jirta oo fiican oo romantic aqaanaan naagtooda taxgirinayaan naagtooda naxariis siinayaan naagtooda maxay jiray inta oo qofka kale u baahan yahay dhan siinayo ma fahanteen oo wax walba diyaar u ah ayaa jirta inkasta bilaadanka isku mid ay wada ahayn sida anaga hadda dumarka aan isku mid aan ahayn ay nimankana isku mid ay ahayn kulligood muxamo qaar fiican ku jira anaga hadda dumarka ka soo qaato qaarkood waxaana caajisyaal oo maanta ninkayna maxaa la jiray ka soo qaadbo nin maanta gabar hadii la qabo oo dhayso wax badan waa soo arkay ma fahanteen oo dhayso diriskii gabdho badan waxay sheekay in soo wadaageen way jiraan oo badan oo fooziyahi saana haysato saan waayo kus waayo waxana oo dhahan way jiraan ma fahmino aan wixii inta la ka siin karnaa inta la ka siiyo way jiraan niman maxallihi jiray oo naga hada daryeelaynin niman way jiraan
oo romantic aqaanin way jiraan but laakiin kulligood nin la isku qabto oo nimankeena Soomaaliyeed romantic ma aqaana intii la dhaho ma fiicno batata ma fiicno waxa fiican dadka in la kala qaado fiican mideeda kale waxaan bulshada la keenayaan oo la dhahayo romantic ma aha wiilasheena Soomaaliyeed kan waayo kuusweeyo waa laga fiican yahay ragow hadda idinkan soo jeestay gabadha waxa ku kalifay inay dhahdo romantic ma aqaano gabadha hadaad qabto ee isnaantaada ay tahay xalaash ay tahay romantic sida loogu baahnay waxa la waxay rabto maanta gurigooda kama waanin waxay cunto email jiifato gurigooda kama waanin gurigooda waxa ugu soo guursato waxay tahay in labadiina kala fahmaysateen fahanti gabadha waxaa la rabaa gabadha nafteeda inta ala cadleed ee meel kala ka caban lahayd waxaa fiican rago gabnaagaha aad qabtiin si fiican way ilaalsado dad waxaa jirtaa gabdhaha la soo wadaageen waa jirtaa oo dhahayaan aniga ninkeyga anaa mar iska dhigayo Caasho Xaliimo Khadiijo Sumeeyo afartaas iska dhigayo soo way jirtaa waa gabdhaha la wadaaga waa jirtaa oo sameynayaan but laakiin ninka asiga naftiisi ona kala raadinaya oo mar walba gabadha waa hanjabaya haddaan yani kaftan ahaan ata hanjabaad iyada si ahaynba hatta kaftan ku dhahay inaan kula guursado kabaran haddaan kula guursaninka afar ilaahay u baneeya afar ilaahay waa kuu baneeyay laakiin mar walba inaad sheegto ma aha ma fahantay mar walba inaad sheegto ma aha afar ilaahay waa kuu baneeyay waad guursan kartaa guurso ma fahantay laakiin gabadhu waxay ku qanacsaneen inaad sameyso waa laga fiican hadduu afar ilaahay kuu baneeyay hadday mar iyada afarta qof isku bedelayso ina macnaha mar walba ku dhaxdo kala guursana kana sameeyna وحكينا وحيتها هاي قبلها السوشيال ميديا انت قالنا ده هاي قبل ليش انا صومالي رومانتك ما قناه يس وحاول هاي نوح كجرو انا والله رعسنا بتلاكيني ما لا رعسني انت برشده براها برشده اي حكينا مربي وحين وحان وانا برايفت نوضع هذا ما فهمتي mid kale oo hadda aan ka hadli rabo wadana iga yaabsano tigtig bas socdo waxaan ku arkay waxay tahay gabar yar oo Soomaaliyeed inay tahay qaxootiga inay tahay aan jeclahay ma garanay meesha ka sii tahay laakiin gabadha yareed adii waxay jirtaa umaleynaa 13 years ay jirtaa gabar ayaa ku qayaantay oo dhahday sabran ka qaaday hiblay xaq istaag gabadhan waxa kaaga sidaran waxay sameynaysaa ستايلك صبرك لوجو بهناي ستايلك فيديو وما هي ستايلك صبرك لوجو بهناي أيه سمينا سكر بل إنك بس قدينا سكر بس سام بينا سكر بس أنا كده بل أصحابي بل إلى تي إذا أنا مجدين تطبقنا رياكشن كسب بحيان كسود في اللي برفيري قبل داس والله واقعهم هاي وقبل ير تيك توك معنيس إني قرنينا على يابا قفت الصوت سرتنا وان قبر وايدنا واناك إني ماما تايتا كسوقات بو إذا لقيا بينا قبرت الشيء هدي ولد دلنا قبرت هايبو سو قيانا مفعنا قفنا قيانتو مفعنا قيانا ولقى اسكيلالي قيانا هل اسكيلاليو قيانا ترقف هذا صبرا كقاذا فيديو كقايس دنا برها برشيدا سو دحدغيسو without oo iyada ay ku siinin ruqso aad video ku soo bandhigto waa laga fiican yahay Soomaaliya bal aan isku noqono gabdho inta dumarkan la hadlaya hadda iyo ragabo aan isku noqono wixii oo eeb oo bulshada aan soo ordayno aan iska dhaafno oo aniga ka koowahay iskama bixinay dumar ahay anaga nafteedan kula hadlayo eebta ma fiicno wixii oo qaasno inay qaasno ahaadaan ayaa fiican wixii anaga private karino ma ahaadaan fiican waxaan xun aan baraha bulshada la soo boodeen misal hadal xun aan baraha bulshada ku dhaxeeno waa laga fiican yahay because anaga Soomaali sawnahna YouTube TikTok waxaan ka aaminsanahay wax oo kali oo banaanka lagu soo bandhigi karo laakiin no waa ka xumahay waxa fiican waxyaalaha markii asqa qabsi ay imaadaan oo la iska qabsado inay gadaal lagu dhameysto behind the scene inay lagu dhameysto ayaan jeclahay midada kale because waxa waaye ajaanibta anaga waxaan sameeynayna tilaabada aan qaadno wayna la socon sida anaga aan la socono sida adiga hadda idin fiirsanayo heesaha waa dhigeysataa
oo diamond heesi meelahaas Chris Brown waxa school waa dhigaysta because waa la socotaa wuxuu sameeyay maanta heestu soo dhig waa la socotaa soo anagana waxa alla maanta wixii aad dhigto waana la socdaan wayna ogyihiin ma fahmin hadhihin Soomaali ma qanaan af Soomaali Google-ka sida hadda mar hore sheegay Google-ka bariyaha waxa walba la socdaa waxa alla waxa afkaana ka soo bixino waa la socdaa ajaanibta because markan maanta filimaadka aan la jilahay ciidahan ajaanibta wallahi Soomaalinimada madaxa isaaran Soomaalinimada waa xishmeeya Soomaalinimada waa qiimeeya Soomaalinimada waan jeclahay ma fahantay Somali ani Soomaaliya ay tahay shanta Soomaaliyeed Soomaaliya ay tahay soo gabar waxaan ahay Soomaali dhan oo matalayso oo East Africa oo ka matalayso Soomaalida ani way ugu qiimo weyn tahay Soomaali zaid baan wax xishmeeya Soomaalida hadda waxa ka xun oo liidaho inta aniga maanta sida ceebta had gabilka cadaanka iyo dadka cadaamaha isku dhagano isku haastaan sida usoo bandigtay fiir dadkaas ayaga sabarkooda soo dhigtay anaga Soomaalida ahayn oo gabdhihi ahayn waa soo qaadanay waa ka fadil celinay meel kasto Facebook oo meel kasto ordooya hadda ninka ajaanibtu soo qaatay uu fiirsaday wixii ka wadaan dhan uu soo fiirsaday soo ogaaday aniga maanta oo dhahayo Soomaalinimada ku faanaya Soomaalinimada aan ixtiraamay oo dhahay Soomaalinimada anaga naga masuurtoodo waxyaalo xun Soomaali saa u nahna anaga baar hata ma aadno sida aniga u ixtiraamayo markii ninka ajaanibta oo faanayo oo ninka ajaanibta u arka videoyaashaas u soo qaato oo ilaha Fawziyo Soomaali aan dhahay barfiir maanta waxa this is maxay Soomaali ma aha markaas waxaan ku jawaabay ma garanay ilaahay ugu dharshay waxaan ku jawaabay ma garanay afkayba jooga gabay soo ani hadda waxaan inta soo fadhiisto waxay tahay anoo hadal badan haan u buuxsho waxaan inta soo fadhiistay inaan nii sheego reality oo been ku jirno runta aan isku sheegno aniga aan ka koowahay adiga fiirsanayana aa ka laba tahay soo waxaan rabaa wixii ceeb gooniha ma ahaato wixii wanaag oo bulshada maanta ay ugu dabatayn karto inaan banaanka soo dhigno wixii ceebna gooni aan dhigano oo private no ahaato intii anagana maanta dhihi karnano waxaana kan maanta la dhalay kan hadda sagaalka jirkii kan kale iyo duqooshima way ugu dabatayn karaa way fiirsan karaan waxa la waxaan sameeynaa aan dhihi karo balbal aan isku dayno wixii ceebna banaanka iska dhigno asxaabe waa walaashin gabadhiina Fawziya comedian inta ijecel waan jeclahay intii nacabna madaxa isaaranta kulaybo alxamdulillah hada wa salaam soo noqod labaad oo xiiso leh